Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Muuqaalka maanta waxaan idiin soo bandhigi doonaa 3 caado oo saameyn weyn ku reebay noloshayda, aanna filaya in ay raad wanaagsan ay ku reebi doonaan nolosha qof kasta. Caadada koowaad: diiwaangelinta fikradaha si degdeg ah. Badankeena afkaarta wanaagsan waxay ina soo maraan mar qura oo ka mid ah nolosheena. Waqti afkaartuwan wanaagsan ay yihiin wadada horumarka, wadada lagu gaaro bislaanshaha caqliga. Si ay afkaartaada u lumin, waxaa qasab ah in aad leedahay meel aad ku ilaashata, meel aad ku xifdisataa, si aad dib ugu laaban kartaa hadhow markaad u baahato. Amaba ay kuu fududahay in aad waxa aad doonaysid aad ka beddesho marka aad doonaysid, si aad u gaartaa marxaladda bislaanshaha caqli iyo horumarba. Maxaa yeelay haddaa cuskata xusuustaada oo bis ah, keliya ma ilaawi doontid fikradda, ee badanaa waxaa ilaawi doontaaba in aad gebi ahaanba hayso wax fikrad ah. Waxaa jira wadooyin badan oo ku xifdisan karta fikradahaada. Wadada ugu wanaagsan ee uguna fudud waa applicationka Google Keep. Waana application bilaash ah oo ay Google leedahay, wuxuuna ku shaqeeyaa Android iyo iPhone-ba. Application-kan wuxuu kuu oggolaanayaa in aad diiwaangelisaa fikrad kasta ama afkaar kasta oo kugu soo dhacda, aadna u diiwaangashataa wax ka badan hal qaab. Application-kan wuu fudud yahay, waadna isbari kartaa si fudud, marba adigoo qaab tijaabinaya. Isku day in aad diiwaangelisid fikrad kasta oo kugu soo dhacda, marka u horeysay kugu soo dhacdaba, dhan kasta oo nolosha ka mid ah oo ay fikradda qusaysaba. Laakiin qaar badan oo afkaarta aad diiwaangashatay ah waxaa ogaan doontaa in ay mudneen in aad diiwaangashataa. Arrinkaana waa dabiici. Wax badan ha isku niyadjebinin, laakiin fikradaha qaar way isku tegi doonaan, waxaana ka dhalan doonaa fikrad ka sii wanaagsan ayagii oo dhan. Badanka fikradaha aan inkula wadaaga halkan ee kanaalka waxay ugu soo dhacaan anoo iska socdo, jiifo, ama howl haya. Maxaad u malaynaysaa haddii aan fikradahaas markaasba aan diiwaangelin lahayn? Dabcan ma dhacdeen muuqaaladan quruxda badan aan iin soo gudbiyey. Caadada labaad: intaanan kuu sheegin magaca caadada labaad, aan ku weydiiyey hal mid ah. Ka waran haddii aad awood lahaan lahayd? Awooddaas waxay kuu oggolaanaysaa in aad aqoonta ka soo koobiyeysato dadka kale caqliyadooda, kadibna aad ku shubatid maskaxdaada. Tusaale ahaan, suuraysa qof baa wuxuu baranayo mise waqti ku bixinaya 10 sano. Waxaasi si fiican ayuu u sugay, khibrad ayuuna u leeyahay. Adna ilbiriqsiyo gudahooda waxaad awoodaa 10kii sano wuxuu soo baranaya inaad koobiyeysato maskaxdaada aad ku shubato, adigoonan ku qaadanin waqtiga uu ku qaatay iyo juhdiga kaga baxay midna uusan kaaga bixin. Dabcan waa awood cajiib ah, laakiin nasiib darro ma ahan mid hadda la heli kara. Laakiin shayga kaliya ee arrintaas ugu dhow ee macquulka ah waa wax akhriska. Qof baa wuxuu waqti dheer ku qaadanaya aqoon inuu barto. Aqoontaasi markuu u barto kadib, wuxuu aqoontaasi ku reebayaa buug ayuu qorayaa. Buuggaasi wuxuu ku soo koobay dhammaan khibradihiisii iyo wixii uu faa'iiday ayuu buuggaas ku qoray. Laakiin adiga buuggaasi waxaa awoodaa in aad ku akhrisata saacado kooban gudahooda. Wax akhriska waa shay aad ku kasban karta xikmad waqti dheer kugu qaadan lahayd in aad kasbata. Wax akhriska wuxuu kuu suurtagelinayaa ama uu awood kuu siinayaa in aad fahanto waxa dhacaya. Wuxuu kugu saacideynayaa xikmad kaa saacideynaysaa in aad qaadato go'aamo wanaagsan oo noloshaada dhanka wanaagsan u jiheeya. Wax akhriska wuxuu kaa dhigayaa qof dulqaad badan mustaqbalka dhow, laakiin wuxuu kaa dhigayaa qofka ugu wanaagsan mustaqbalka fog. Faa'iidooyinka wax akhriska uu leeyahay aad bay u badan yihiin, waxaana macquul ah in aan ka sameyno muuqaallo kale oo ku saabsan wax akhriska iyo faa'iidooyinkiisa. Haddii aad mowduuca wax akhriska aad danaynaysid in aan muuqaal ka soo suubinno, inagula wadaag fikirkaaga hoos commentiga. Caadada saddexaad waa caado aan iska joojiyey. Waa caadada la socoshada wararka maalinlaha ah. La socoshada wararka maalinlaha ah iyo dhacdooyinka waa waqti lumis, mana aha arrin mudan in aad waqtigaada ku bixisa. Haddii aad tahay dadka caadadan leh amaba daneeya in ay subax markii ay soo kacaan ay mobilka inta soo qabsadaan ay furaan website-yada ay booqdaan, wararka u dambeeyay akhriyaan, ama hadday intay idaacadda daartaan ay idaacadda subaxnimo daartaan, taladaydu waa in aad gebi ahaanba aad iska joojisaa, in aad ka takhalusta daba orodka wararka. Maxaa yeelay wax faa'iido ah kaagama soo xaroonayaan, mana jiraan wax faa'iido ood ka helaysid. Taa beddelkeeda waqtigaada waxaad ku bixisaa wax adiga ku anfacaya,
ku bixi inaad wax cusub barato, inaad dad kale saacidayso, wax nafcigoodu kugu soo laabanaya. Gaar ahaan duruufta xunxun ee aynu marayno dalalkeena muslimiinta ah ama si gaar ah dalkeena hooyo. Badankeena waxaan ku mamarsiyoonayna in aan wararka ula socono si aan ula socono wararka iyo dhacdooyinka caalamka ka dhacaya si aan adduunka aga harin. Laakiin taa mamarsiyo maaha. Warbaahinta sidooda dabiiciga ahba waxay xoogga saaraan dhacdooyinka negative-ka ah, dhacdooyinka xunxun, dhacdooyinka aan wanaagsaneyn. Maxaa yeelay ayaga ayaa ku dhex faafi og dadka dhexdooda. Badanka dhacdooyinkaasna maaha kuwa adiga ku quseeya, saameyn gaar ahna kugu yeelanaya, ama ma aha dhacdooyin aad ficil ku leedahay ama aad wax ka qaban karto oo aan ka ahayn in aad murugood ama aad walwasho. Taa oo aadi ahaantaada kuu keeni karta in ay khalkhal kaa geliso howlahaada shakhsi. Nafsadaada u dhimri, kana qaad culayska aad dusha u saartay. Waqtigaadana waxaad ku bixisaa wax adiga ku anfacaya, qayrkaadana anfacaya dabcan. Ani ahaan in aan yareeyay la socoshada wararka iyo in aan xoogga saaray waxyaalaha faa'iidada ii leh, raadkiisana uu haraya waa mid ka mid ah sababihii ugu muhiimsanaa ee iga saaciday in aan kanaalkan suubiyo.